ciise waxaa ka buuxsamay ruuxa quduuska ah oo weli urdu ayuu ka noqday oo ruuxii baa cidlada u kaxeeyey 40 maalmood ayaa ibliisku jiribayay maalmahaasna waxba ma cunin goortay maalmihii dhammaadeen ayuu gaajoobay markaasaa ibliisku wuxuu ku yidhi haddaad tahay wiilka ilaah kulah dhagaxan kibis noqo ciise baa u jawaabay oo ku yidhi waa qoran tahay dadku waa inaanu kibis oo keliya ku noolaan oo markuu kor u kaxeeyey wuxuu wakhti yar ku tusay qurumaha dunida oo dhan markaasaa ibliisku wuxuu ku yidhi amarkan oo dhan waan ku siinayaa iyo ammaantoodaba waayo waanay siiyey oo kii aan doonayo ayaan siiyaa haddaba haddaad hortayda iyo caabudid kulli adaan lahaan doona markaasaa ciise u jawaabay oo ku yidhi waa qoran tahay waa inaad caabuddo rabbiga ilaahayga ah oo waa inaad isagoo keliya u adeegto markaasuu yeruusaalem geeyey wuxuuna saaray munaaraddii macbudka oo ku yidhi haddaad tahay wiilka ilaah halkaan hoos isaga tuur waayo waa qoran tahay malaa'igihiisa ayuu ku amri doonaa inay ku ilaaliyaan iyo inay gacmahooda sare kugu qabtaan inaanay cagtaadu dhagax ku dhicin ciise baa u jawaabay oo ku yidhi waana yidhi rabbiga ilaahayga ah waa inaanad jirabin ibliiskiina markuu jirabaad walba dhameeyey ayuu tidhi intii wakhti ah